soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idin salaamay giddigiin. Aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa sida aad nooga aqbasheen casuumaddii aan idiin soo dirnay. Barnaamijkana maanta aadkii runtii u qiimaha badan aan kaga hadlayno arrimaha COVID-ka, fatahaadaha iyo ayaxa iyo waxyaabaha kaloo markino bini'aadnimada leh oo saameeyey waddankeena Soomaaliya. Waxaa noo jooga dad badan oo runtii khubro badan ah oo dhinacyo kala duwan ah oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya. Waxaana sidoo kale aan soo dhaweyneynaa dadkeena nagala xiriiraya Facebooka oo runtii ayaga laftooda qayb ka mid ah markino la xiriirka iyo ka qayb qaadashada barnaamijyada markino taxanaha aanu sameynaynay Global Somali Diaspora. Dadkaan aqoonin Global Somali Diaspora waa ururka qurbo joogta Soomaaliyeed. Marka wuxuu raalli ahaada wuxuu maaragtay muhiimadiisa iyo ujeedadiisa ay tahay runtii inuu isku keeno dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku kala baahsan ee ku nool inuu u noqdo dallad isku keenta isla mar ahaantaasna fursad abuurta maaragtay aqoon isweydaarsi iyo isbarasho iyo isdhaafsi wax isdhaafsi lagu sameeyo sidoo kalena lagu taageero waxna loogu qabto waddankeena iyo dib u dhiskiisa iyo hadba dhibaatooyinka soo kordha. Waan ognahay Soomaalida qurbo joogta runtii inay ka yihiin tiir dhexaadka. Intii bila ahba waxaan runtii soo wadnay barnaamijyo aan ugu talagalnay COVID-ka. Sidaad ogtihiin COVID-19 wuxuu aad iyo aad u saameeyey adduunka oo dhan gaar ahaan wadamada reer galbeedka. Marka Soomaalida runtii ku nool qurbahaas aad iyo aad buu u taabtay annagoo wacyigelin iyo wax isweydaarsiba intaba ka samaynayna. Waxaan marka barnaamijkeennan aan ugu talagalnay maanta in arrimaha COVID-ka siduu u saameeyey Soomaaliya iyo waxyaabaha kale oo arrimaha bini'aadnimo ee ka jira waddanka inaan ku falanqayno iska wareysano iyo sidii markano xal u raadinteeda markano qayb looga noqon lahaa dadka loogu wacyigelin lahaa gaar ahaan dadkeena runtii qurbo joogta ah. Marka ugu horeysa marka waxaan jeclahay inaan aad ugu mahadnaqo wasiirkeena sharafta badan ee wasaaradda arrimaha bini'aadnimada iyo maaragtay maareynta musiibooyinka wasiir Xamsa mudane Xamsa Saciid Xamsa oo maanta waqtigiisa qaaliga ah inoo soo huray inuu barnaamijka inoo furo. Sida dad badan ogtihiin mudane wasiir Xamsa waa runtii wasiir aad iyo aad u qaali badan oo qaali u ah oo runtii wax badan ka qabtay dhinaca arrimaha bini'aadnimada iyo dhibaatooyinka waddankeena ka jira. Hogaamintiisana runtii ay dardar gelisay sidii wax looga qaban lahaa sidii loogu gurman lahaa ummadeenna ku dhibaataysan arrimahan hadda aan maanta ka hadlayno iyo kuwo kale oo tiro badanba. Soo dhawow mudane wasiir Xamsa. waad mahadsantahay gudoomiye Jawaahir. horta aad baan u faraxsanahay hawsha aan waddanka ka wado. waddankaas oo qurux badan ayaan ka soo tagay waxaan ka doortay waddanka. mudane ali marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad u soo agaasitay shirkan. waan dareensanahay muhiimadda ay leedahay Soomaalida oo dhan. waxaan idinku sii dhiirigelinayaa inaad hawshan intaan ka sii ballaarisaan insha Allah. anigoo aan jeclayn in aad waqti badan idinka qaato waxaan jeclaan lahaa in aan warbixin kooban naga siiyo xaaladda waddanka Soomaaliya kaasatan khatarta abaaraha fudud inagu soo haysa iyo xanuunka caabuqa u samaysa caalamka COVID-19. sidaad la wada socotaan caabuqa COVID-19 saameyn weyn ayuu ku reebay Soomaalida haddii noqoto dhinaca dhaqaalaha isku socodka caafimaadka
xitaa wuxuu sameeyey is aragga dadka aanu muuqdan aan ku shirno Zoom alxamdulillah anagoo saameyn weynna nagu ma yeelan xagga dhimashada Soomaalida waxaa ilaa maanta waxaa laga helay ilaa 3,380 dhimashada waa 98 qof markaan ka hadlo dhinaca saadaasha xilli roobaadka 2020 waxaa la saadahay in ay deyrta roob fiican jiri doonin sidii tii 2016 iyo 2017 waxaana xigi doona jilaal qalalan bisha January ilaa bisha March 2021 haddii xilliga guuga 2021 roobka la filaya ay yaraadaan xaaladu way kasii daraysaa waxaan hadda haysanaa 6 bilood kaliya in aan isku diyaarino gurmad sida aan isku diyaarin lahayn insha Allah abaartii 2016 gurmadka ugu weynaa waxaa geystay 70% muwaadiniin Soomaali ahaayeen 30 kaliya ayaa beesha caalamkan u kaamay marka waad dareemi kartaa how was impacting of Somali diaspora qaybta ay ka qaateen waxaan aaminsanahay haddii aan Somali diaspora wadankan for the last 30 years remittance ka asameys ayuu wadankan ku badbaaday wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxay hirgelisay xarunta gadigista xaaladda halis wadareedka ama early warning centerka waxaana diinig joogto ah siisaa bulshada khatarna ku soo food leh sida abaaraha fatahaadaha iyo ayaxa marka waxaan in la ka socodsiinaa walaalay diaspora meel kasta aad joogtaan inaad isku diyaarisaan sidaan ugu hortagi lahayn xaaladaha nagu soo wajahan wadanka inaad sanduuq abuurtaan oo si loo gaargaana shacabka runta anaga xaaladaan ku shaqeeyno isxilqaana oo lagu shaqeeyaa aad u taqaan iska waxqabs dhaqaale ma jiro laakiin alxamdulillah waxyaabo badan waxaan ku guuleysanaa xaruntaan u sameeyay dad badan inaan ka badbaadino fatahaadii maxal yiraahdo beledweyne ka dhaceen dhimashadii waa yaraadeen dhibaatooyinku waa iska jiraan laakiin waqti adag ayaan ku jirnaa marka waad mahadsantihiin wallahi billahi tawfiiq aad iyo aad ayaad u mahadsantahay saacatul wasiir aad baa u mahadsantahay kaaga mahad celinaynaa barnaamijka inoo furtay iyo warbixintaas yara kooban eedna siisay runtii waxa aad maaragtay lagu farxo weeyaan in qurbjoogtu mar walba ay ka yihiin haldoor koobaad gargaarka ummaddeena mar walba markay dhibaato jirto waana run waxa weeyaan intii markii ay wax dhacaan la ordi lahaa in haddeertaan loo sii diyaar garoobo runtii oo laga sii maaragtay baraarugsanaado runtii ayay ku habboon tahay marka dhiirigelintaadaas insha Allah waa qaadanay saacatul wasiir aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ah ee noo siisay insha Allah waxaan jeclaan lahaa markaan inaan soo dhaweeyo waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in xubnaha maaragtay matalaya hay'adaha caalamiga ah ay yihiin xubno muwaadiniin Soomaali ah runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaad arkaysaa horumarka wadanka uu gaaray sida laalgan u dooranay maanta waxaan ka fikiraynaa marka hore English miyaan ku hadalnaa Soomaali miyaan ku hadalnaa laakiin markaan aragnay in runtii xubnaha ka socda hay'adaha caalamiga ay xubno Soomaali yihiin ayaanu go'aansanay inaan maaragtay barnaamijkeena luqadda Soomaaliga aan ku bixino marka aad baan taasna aan runtii ugu faraxsanahay waxaan jeclahay inaan markaan soo dhaweeyo Dr. Mahad oo runtii way aragna u ah maaragtay khabiirna ku ah cudurrada faafa wax badanna ka shaqeeyay runtii wadankeena arrimaha COVID-ka iyo sidii u saameeyay ummaddeena gaar ahaan magaalada Muqdisho inuu maaragtay asagana warbixin kooban inaga siiyo soo dhawow Dr. Mahad gudoomiye Jawhar aad u mahadsan tahay dhammaan waa idin salaamayaa aan ugu horumarinayaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka wasiir Xamza iyo colleagueska kale inta ka socda hay'adaha kale institutionka waa uga mahad celinayaa Somali Global Diaspora dadaalada iyo ay bixinayso si ay
qayb uga noqoto muxuu ahaay horumarinta iyo muxuu ahaay fayoobi qabka ummadda Soomaaliyeed xilligan adagna especially oo jira pandemic COVID-19 baahi gooni ayaa loo qabaa in dadaalada iyo efforts ka la mideeyo markii uu bilowday COVID-19 outbreak ayaa waxaa inta badan lagu celcelin jiray COVID-19 si loo macnaha looga hortago ama la iskaga maaragtay control waxaa loo baahan yahay in la midoobo waxaa loo baahan yahay in la isku muujiyo solidarity waxaa loo baahan yahay in la isku muujiyo macnaha isku dulqaadasho dadkana aanan noqonin yani uusan qofka dareemin dhibka ku dhacay ama bulshooyinka dhibka ku dhacay aysan dareemin inay gooni ka yihiin bulshadii ay qaybta ka ahaayeen marka wax fiican waayo waa idinkaga mahadcelinayaa sidoo hadda wasiirka sheegay xanuunka anaga markuu nagu bilowday ilaa hadeertaan 3,380 xaaladood ayaa confirmed noqotay waxaa la muxuu ahaay test gareeyay dad ka badan 12,000 oo suspect case ahaa marka across the country waddanka oo dhan ay ku jirto xataa Somaliland muxuu ahaay testiyada la sameynayay maamulka Somaliland iyo maamul goboleedyada kale sida Puntland Jubbaland Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle xanuunka markuu Soomaaliya uu ku bilowday anaga waa dareemi kartiin health systemkeena nidaamkeena caafimaadka mid aad u horumarsan ma uunan ahayn mana dhisnayn waxay nagu ahayd marka dhibaato aad nagu culus laakiin dadaalo la sameeyey iyo iskaashi la muujiyey dowladda iyo partnerska kaleenta iyo bulshada qeybaheeda kaleenta waxaa lagu dadaalay in macnaha dadka wacyigelin fiican loo sameeyo waxaa lagu dadaalay at least in center xaaladaha adag xanuunka la soo dhacaya lagu controlo waxaa lagu dadaalay in gobolada la geeyo ICU maaragtay intensive care units in la geeyo agabkii macnaha lagu sameyn lahaa waxaa lagu dadaalay in baarista kor loo qaado markii hore sidaad la socotaan baarista waxaan u dirsan jirnay through the WHO wadamada noogu dhow sida Kenya oo kaleente wasaaradda caafimaadka iyo dowladda isla socda waxay ku guuleysteen in national laboratory la kiciyo waxaasoo dhan waxay ahaayeen dadaal iyo isgarab istaageen muxuu ahaay qeybaha kala duwan ee xukuumadda iyo bahwadaageeda sida dadka taageera donorska iyo partnerska iyo bulshada rayidka oo Soomaaliya nasiib wanaag aada looga qayb qaatay xanuunkii waxay dhacday in uu hoos u dhac ku imaado waa dareemi kartaan marka saameynta xanuunka meelaha uu ku sameeyey markii oo ay macnaha xaaladda ay aad ku adkeed sida ganacsiga oo kaleente waxbarashada oo kaleente isku socodka oo kaleente humanitarianka laftirkiisa because ma ku turayaan dhibaatooyinka kaleento bini'aadanimo ee dalka ka jira maadaama dalkeena dal aad u nugul uu yahay waxaa jira fatahaado iyo biibaxo waxaa jirta maxaa la dhahayay anyixid sida desert locust waxaasoo dhan way jireen laakiin anaga Soomaaliya waxaa slogan laga dhigtay dealing with triple threats ka oo loola jeeda markaas COVID-19 outbreak anyaxa iyo fatahaadaha marka waad dareemi kartaa dal oo macnaha kaabayaashiisii aysan diyaarsaneyn si fiican isugu filneen oo intaasoo aafooyin ay si gooni ugu dhaceen adduunkan oo la wadaagayo marka waxay noqotay arrin aad u xanuun badan saameyn waxay keentay marka oo ah xataa psychologically dadkii in ay aad u cabsadaan ay panic noqdaan saas ay tahay weli waxaa la leeyahay xataa psychosocial supports in la sameeyo meelaha qaar dadka aadka u nugul ama dadka overcrowdedka ay ku nool yihiin wacyigelintana waxaa loo wadaysi oo aad u baahsan iyadoo laga wada qayb qaadanayo waxaa ku soo hartay dadaalada la sameeyay caafimaad ahaan bahda caafimaadka dhaqaatiirta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama ha ka mid noqdaan dadka diasporada ah ama ha noqdaan kuwa meelo kale inta maaragtay mission shaqa u joogo
waxaa la sameeyey platforms lagu caawinayo kooxda ama wasaaradda caafimaadka ama dadweynaha ka shaqeynayo arrintan sidii ula tacaali lahaayeen oo telemedicine ah marka dadaalo badan ayaa la sameeyey laakiin xanuunka anaga markii la fiiriyo mujtamac ahaan sida aan nahay wuxuu yani noogu dhacay si oo yasiran sababtoo ah nidaamkeena caafimaadka aad buu u hooseeyey marka dadka waxaan caawiyo waxaa ka mid ah dadka Soomaalida ah inta badan dad dhalinyaro ay u badan yihiin xanuunka markuu dad dhalinyaro ku dhacana inta badan 3 to 6 days ay xanuunka la safar gareynayaan kadib waa iska bogsanayaan unless aysan underlying disease aysan qabin sida tusaale ahaan xanuunada lala nool yahay sokorta dhiigkarka wadna xanuunka kansarka waxyaalahaas oo idin waxaa ku soo haray oo na caawinaya maadaama mujtamac ku nool meel aafo badan ay ka jirto uu yahay inta badan waxaa la sameynaya qof kastoo Soomaali ah inta badan xanuunada ku dhaco jirkiisa waxay siinayaan immuunkiisa oo kale inuu noqdo polyclonal yani immune oo muxuu ahaay difaaciisa uu aad u sareeyo oo marka jirka hadii wax soo galaan si fudud macnaha ula react gareyn karo sidaas darteed marka hadda uu ka chance fiican yahay qofka immuunkiisa oo very low uu yahay ama tusaale ahaan immuunkiisa uusan reactive ahayn oo monoclonal uu yahay antibodies badan aysan u samaysnayn waxyaalahaasna waxay na caawiyay ayay ahayd xanuunkana maadaama global pandemic uu ahay dadkuna tuulo ay ku wada nool yihiin cabsida iyo in dadka ay u nuglaadaan fariimaha ka imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dadka ka shaqeynayeen ayadana aad bay noo caawisay sidaas darteed marka xanuunka dadkii uu naga dilay markii laga reebo numberkaas hadda la sheegay oo caanka ah markii laga reebo dadka kaleeto waa noo bogsadeen alxamdulillah haddana ilaahay si kanwiif naguma keeno laakiin xaaladda guud ahaan under control waaye wuu sii jirayaa covid-19 cases way jirayaan ilaa waqti waa la helayaa sida haddeertaanba average-ka 4 ilaa 5 qof ayaa cases ah ayaa la helaa inta badan maalintii marka muxuu ahaay wax dhimasho ah soo far ma jiraan under control waaye welina wasaaradda caafimaadka ma aynan shaacinin xaalad ziyaada ah ama la dhihi karo second wave ayay u tahay horumar ama ay u tahay hordhac guud ahaan afrikana xanuunka sida uu uga dhacay meelaha kaleente America iyo Asia iyo Europe kaleenta laakiin waxaan u baahannahay inaan foljignaano waxaan u baahannahay in aan windowgan ka faa'iideysano aan diyaar garoono marka waxaan dadka ku dhiirigelinayaa nalagala socdo online-ka in ay u nuglaadaan qaadashada fariimaha ka imaanaya wasaaradda caafimaadka aad iyo aad u mahadsantihiin aad baa u mahadsantahay Dr. Mahad warbixintaas kooban oo runtii aanaga siisay arrimaha COVID-ka runtii ilaahay baa mahad iskale inay maaragtay ay noqotay xaalad yasiran marka la fiiriyo maaragno saameynta uu ku sameeyey COVID-19 bulshada Soomaaliyeed sababtoo ah sidaa sheegtay muxuu ahaa xaaladda maaragno caafimaad iyo daryeelka ka jira muxuu ahaa waddanka runtii oo iska xadidan ilaahay subxaana watacaala inuu inoo yasiray oo maaragno sida hadda waddamadan annaga aan joogno loogu dhammaaday oo dhibka badan ugu geystay aysan noqonin waana sidaa sheegtay runtii in la feejignaado oo aan la isdhiganin oo dadku mar walba ay ogaadaan in weli maaragno covid inuu weli jiro uuna yahay maaragno runtii wax maaragno dili kara dadka mar walbana la is ilaaliyo oo maaragtay la raaco talooyinka khubarada caafimaadka iyo dowladda ka soo baxaya aad baa u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa markaan inaan soo dhoweeyo Dr. Muridi ma nala joogtaa hallo mandeeq Dr. Muridi yeah wuu ku jiraa moodka ilaad ka saartid waaye Dr. Muridi asaga inuu iska saaro waayo somaha ma maqlaysaan hadda waa ku maqalnaa haa soo dhawow Dr. Muridi Aamin Sheekh oo ka mid ah xubnihii firfircoonaa oo runtii aasaasay guddiga fatahaadda Afgooye
oo runtii ayaga u gurmadeen inay maaragtay ay caawiyaan waxna ka qabtaan runtii taakulaynta loogu jiray fatahaaddaas dhibaatooyinka badan u geysatay magaalada Afgoy iyo nawaaxigeeda. wuxuu ka mid yahay Dr. Muriidi runtii Soomaalida qurba joogta ah New Zealand nagala soo qayb galay aadkii aadkana u firfircoon oo runtii u gurmaday dhibaatooyinkaasi ka dhacay waddanka sidii wax uga qaban lahaayeen isaga iyo xubno kale oo runtii aad u firfircoon oo guddigaasi ka mid ah marka Dr. Muriidi soo dhawow waxaan jeclaan lahayn inaa maaragtay warbixin yar oo kooban naga siisid insha Allah dhibaatadu inta ay la eg tahay iyo sida Soomaalida qurba joogta runtii oo adduunka oo dhan joogta sida maaragtay aad isugu xil saarteen inaad maaragtay arrintaasi aad ugu dadaashaan sidii wax loogu qaban lahaa iyo hadeertaan caqabadaha maaragtay runtii jira sida wax looga qaban karo si aan dadka ugu wacyigelino soo dhawow Dr. Muriidi bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa wasiirka gargaarka iyo abaaraha gudoomiyaha barnaamijka Jawaahir Daahir mudanayaasha kale oo meesha fadhiya dhibaatadanu markay dhacday arrintan asliyan waxaan ka aasaasay horta New Zealand marka aan ka sameeyey gargaarkaas ayaa waxay ila noqotay maadaama dadka reer koonfur galbeed ay ku yar yihiin New Zealand inaan la xiriiro adduunka intiisa kale rag odayaal ah uu ka mid yahay Sheekh Nuur iyo Suldaan Buude iyo oo iyagana Mareykanka jooga ayaan arrintii ku wargeliyey within a couple of 48 hours caalamka oo dhan waa qaatay marka maasha alxamdulillah mar walba horta sidaasaan u taagnaa waxaa ka sii horreeyey kii abaaraha waxaa ka sii horreeyey kii qaraxa xoogaa waxaad moodaa laakiin connectionka dowladda federaalka iyo qolada diasporaha inuu maaragtay gaab ku jiro waa ka wada hadalnay iyada ku dheeda bardu waxaan isnayra arrintan hadda taagan oo u baahan in la dhayo dadka masaakiinta oo biyaha dhex degan ama meel ay maaragtay xataa ku harsadaan aysan lahayn inaan marka hore muxuu ahaa arrintooda xal ka gaarno kadibna aan u soo jeesano wixii maaragtay la samayn karo oo aan ku wada xiriiri karno annaga oo diaspora wasiirkaa sheegay waa lafdhabarka dalka runtii markii laga hadlo iscaawinaadda iyo Soomaalidu runtii aad ay u qiir badan yihiin Soomaalida dad la xukumi waaye maaha Soomaalidu waxay u baahan tahay hoggaan dhab ah على كل حال مرة بداس وحاس هذا إن سي قلقلو عدي القصيصان كل كلا هذا دونا هذا نوحي نوم رئيسان ميل في عن يعني بال وحكير أيا وحن كسو أوروريني تضباطن يسديد كن أو US دولار بال وحكير حاو ملايين إسا أرينتان هدي سالك اللور ديغو وأن جوكتينو إنان قبان كرنو انت أسن كبادنا قبان كرنو برنامج كان يساق قوليسا وحاوها جواب سيداد لا سocota waxaan sugahay aniga email in la ii soo diro in advance inaan ogaado laakiin hadda anoo magaalada jooga muxuu ahaa teel soo hada wasiirka waa fadhiyaa tire mobile-kayga ka soo shiday marka hore kadibna hadda computer ka aanimid waxay ugu tahay marka xoogaa wax degdeg ah oo diyaar garowgeeda ma aragtay uu aad iigu yahay waqtiga laakiin diyaar waxaan u hay habeen maalin diyaar u hay dalkayga iyo dadkayga inaan wax u qabto dalkayga iyo dadkayga inaan wax u qabto inta aan ka geeriyoonayo qurbada aan joogno runtii horta qadar allay ku noqotay wayna fiican tahay in Soomaalida ay qurbadu ku badnaato maxaa yeelay haddii aysan jiri lahayn qurba joog maanta marxaladaha dalka uu soo maray kaalinta ay ka qaateen yaa qaadan lahaa no one marka chainka maaragtay silsilada isku xirta qurba joogta iyo muxuu ahaa dowladda federaalka koonfur galbeed waxay doonta ahaato in xoogaa la habeeya fiicnaan lahayd
waxyaabo badan oo waxaa jira hadda aanan soo kookoobi karin taleefanaa soo dhacdhacaya hadda horteedu yaallaa waxayna ku saabsan tahay arrimaha fatahaadda afgooye على كل حال ان ورجينا ان ما عرفت حريركين وفعناده وعي قلنت اي سي سعوتو وربحينتو انتا كبدتو ان بروجكت كان برنامج كان قديسه ان بي دي اف دا اي سو ديرت انا اخريو وحي كلو تلا اما ان كو كوردين كرنا ان كدغنو مخوها ان فديغا لباد اما زوم كلباد غورتو دونو هان نقدو I'm ready 24 hours anyway. دكتور مريدي آدي وانا إذن سلامية ديار نواهي. دكتور مريدي آدي أدبا أمها السنتهاي رنتي وحويان وكحنا إنا إيميل كهرل لغو soo diray aadan helinin dadkoo dhan waa loo diray adigana waa ku soo dirtay mandeeq oo runtii u ahayd maaragtay laf dhabar maaragtay xiriirinta barnaamijka oo dadkoo dhan maaragtay isku xiraysay marka waxaan u haystay inaad runtii heshay emailkii hore lagu soo diray marka waan ka xumahay taas tan kalena haddaad muxuu ahaa noo taaban kartid maxay yihiin caqabadaha ugu weyn oo hadda ka jira muxuu ahaa fatahaadda afgooy wallahi fatahaadda afgooy hadda taleefanada soo dhacay caawaeed inaan soo gunaanadno waxa aan haynana inaan soo bandhigno kadibna sidii lagu fulin lahaa guddiga xagga laga sameeyey afgooye inaan u xil saarno qaabka ugu habboon iyo waxa roon oo la samayn karo markay noo soo gudbiyaan kabacdina annagana halkan approval ka siino wixii kale oo u baahan ma aragtay in dibadaha laga raadiyo ama dowladda laga raadiyana in annaga raadina markaa kadib waxa weeye aadan kaaga mahadnaqayaa dr maridi mudane muxuu ahaa wasiir xamse waa nala joogaa wasiir xamsena runtii waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay runtii wasiirada aadka farakutariska ugu ah dowladda federaalka oo mar walba u taagan in uu ka maarkino يعني كقاضو ماركتي فعل كسميو أما حرير كماركتي ولا سميو أما قرب شوكتها هذان مر بينو كسو جوابه ماركنو عدسيغا ماركنو كي ماده دad كان قرب شوكتها وزير حمسنا وانا la joogaa runtii waxaan rajeynayaa maaragtay wada shaqeyn fiican inay adinka iyo wasaaradda arrimaha maaragtay bini'aadnimada iyo maareynta musiibada maaragtay inay idin dhex marto sababtoo ah waxa weeyaan markaan isla shaqeyno markaan maaragtay cuudeena midayno markaan maarkino aan waxyaabaha aan qabanayno aan maarkino aan isla xiriirino markaas runtii maaragtay waxaa ka dhalanaya saameyn weyn ay ku yeelanaysaa maaragtay mug weyn maaragtay waxyaabaha aan qabanayno waxaan u jeedaa wasiir xamse wuxuu rabaa inuu kelmad yiraahdo u malaynaya soo dhawow mudane wasiir waa salaamantii horta marka hore waxaan rabaa inaan meeshaan ka salaamo walaalkay muriidi amiin aan muddo dheer aan ismaqalin maantaan shaashada ka arkay maasha allah wiil sidaada u ogtahay isma bedelin aniga horta hoodi laakiin aniga waa duqoy musiibaan ku dhex jiraa aniga muriid horta haddaan xoogaa warbixin aan kaa siiyo afgooye alhamdulillah horta with all of the measures security issue iska jiro aniga we took the risk afgooye aan tagay haddaad la socotid aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed meeshaan tagnay maamulkaan la soo kulanay maalin inaan meesha soo joognay wasaaradda gargaarka absolutely aniga implementary manin aniga waxbaan geynaa meesha laakiin hay-adaha nala shaqeeyaan kuwaas mobilize fiican aan sameynay wax waa la geeyay laakiin meelahan wili meel la gaarsiinin waa tuulooyinka ku hareersan ee degmada afgooye sida bariire canoole zabiid awdheegle iyo meelahaas aan wili wax la geenin dowladdana waa la socotaa waxay ku wareejisay ilaa $500,000 ah ee maamulka koonfur galbeed oo aan rajeynayna aydan sida ugu dhaqsi badan in lacagtaas la isticmaali doono waxaad qabateenna waa wax lagu farxo maanta 70,000 focuska xoogaa saara ee tuulooyinka ku hareersan afgooye marka meelahaas wax loo baahan hadda ka horena raashin badan ayaan geenay meesha afgooye u tiqiinay ma oo lagu tegi jiray 30 daqiiqo 2 saac bar ayaan afgooye ku tagay ciidan aan wadanay meesha
tegiddeena hataa qof ogaa ma jirin kilsaan ugu kor tagnay waxaan horta dhibaatooyin fara badanaa jira meesha dadkiina way ku bateen waddanka dadka beeraleyda kulligood badankooda barakacayaal ay noqdeen waxaa laga hadlaa 2.6 million of Soomaali ay oo beeraley ayaa maanta magaalada ku barakacsan beerayaasha waa laga soo tagay dalag badan ayaa meesha ku halaa marka webigaas oo fatahay badankooda wuxuu ahay flash flood xilli oo xagaa oo webi fatahay ma joogna anaga webigaasna afgooye muddo badan ayay mala safeen meesha wuxuu iska noqmeel dumpster qashin lagu daadiyo markaan rajeynayna inay waxaas ay wax ka qaban doonaan dawladdan waa ka wada hadalnay arrimahaas in afgooye loo gurmado marka wax fiican wadda gaargaarka hala geesiyo laakiin focuska saara tuulooyinka ku hareersan afgooye waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay mudane wasiir aad iyo aad u mahadsantihiin maaragtay warbixintaas ku saabsan arrimaha fatahaadda iyo dhibaatooyinka ay u geysteen ummaddeena maaragtay ku hareeraysan magaalada afgooye iyo nawaaxigeedaba waxaan jeclaan lahaa markaan inuuna u gudbo muxuu ahaa fatahaaddii ka dhacday iyadana magaalada beledweyne iyo nawaaxigeedan ognahay iyadana sidoo kale dhibaatooyin badan inay runtii ay geysatay waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo maxamed cabdulaahi buraale oo runtii nin dhalinyar ah oo aad iyo aad runtii isaga laftigiisa xubin firfircoon siyaada ka ah arrimaha iyo gargaaridda maaragtay fatahaadda beledweyne nawaaxigeeda sidoo kale waxaan ogahay inuu guddi kale ka jiro isaga laftigiisa oo arrimahaasito ka shaqaynaya oo u badan dad qurba joog ah runtii sidii loogu gurban lahaa sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa dadka runtii ka barakacay dhibaatooyinkaasayto marka maxamed soo dhawow waxaan jeclaan lahaa marka inaa warbixin yaro kooban inaga siisid insha allah sida loogu gurmaday gaar ahaan dadka qurba joogta ah iyo waxyaabaha maaragtay hadeertaan ugu badan ee maaragtay caqabadaha ka jira dhibaatooyinkaasayto inaa maaragtay ayagana aad waxa nooga sheegtid mahadsan soo dhawow maxamed mandeq maxamed ma nala joogaa waa nala jooga muudka iska saar maxamed bismillah waan salaamayaa dhammaantiin ugu horreeya wasiirka musiibooyinka iyo gargaarka maareynta dhammaan maaragtay global Somali diaspora global diaspora runtii horta waa aad u mahadsantihiin barnaamijkan barnaamij fiican oo maaragtay qurux badan oo insha Allah wax badan la isku weydaarsan doono yahay runtii beledweyne waa meesha ugu daran hadda dhiig ay ku soo noqnoqotay fatahaaddan dhibaatada geysatay waxyaalaha ugu daran oo maaragtay dhibaatada ay geysanayso waxaa ka mid ah hadda muuqdana waxa waa beerihii waxaa muddo beerihii waxaa haray guriga geedka liinta oo wixii 5 sano ka weyn iyo geedihii cambaha haray maadaama fatahaadii ay noqotay roob kasto ay ahayd haddana ay ka gudubtay hadda xilli roobaad annagu ku jirin waxaa noo imaaday fatahaad maadaama aan xuduud la leenahay Ethiopia marka waxa uu wadaa dhowrkii bilood saddexdii bilood roob imaado magaalada laga qaxayo ay baaba'ayeen beerihii ay baaba'ayeen ganacsiga oo baaba'ayo noloshii dhan maaragtay aad moodo inay aad u baaba'do wuxuu kaloo saameyn ku yeeshay ganacsatada qudaarta beledweyne waa meelaha qudaarta loogu dhoofiyo gobolada bari ilaa waqooyi looga dhoofiyo qudaartii ay qaadi lahaayeen qudaartu waa laba nooc mid waa geed mirood mid waxa waa qudaarta yar oo yaanyada iyo waxyaalaha la abuuro oo inta badan maaragtay aad loo isticmaalo qudaartii xataa ganacsatada xataa qudaartu way weysay qaali mararka qaarkood waxaa dhacdo si emergency inuu ugu imaado sida hadda kahor dhacdo kaleeto habeen ka mid habeenada iyadoo la jiifin oo roobab badan dhacay webigana hal mar qataay oo dadka ay ka gaari waayeen xataa waxyaalada la baxay marka dhibaatada uu webiga geysto waxa way aad u badan tahay hadda aan ku jirnana maaragtay inkastoo dadaal badan la sameeyay oo lacagii dawladda ay soo dhigtay iyo lacagtii Djibouti ay soo dhigtay iyo lacag Somaliland ay keentay adi lacag milyan iyo xogaa iyo lacag reer beledweyne iska aruuriyaan oo lagu bilaabay shaqo fiican lagu qabtay oo hadda aad moodo in la baraarugay oo biyihii oo guurtida biyaha waa laba nooc beledweyne biyo waa guurti waayo waxay ka imaadeen Ethiopia ilaa ku dhawaad 7 kilomitir 8 kilomitir webiga ilaa buuraha inta u dhaxaysay ku socdaan soo toos xad kuuga soo gudbaan waa biyaha ugu badan ee dhibaatada geysto waaye dabcan hadda waa la maareeyay inta badan kuwii oo banaanka imaanayay balse webigii waa cariiri noqday darteed ayaa haddana maaragtay magaalada qaybo ka badan ku fatahay uu awoodi waayo inuu maaragtay celiyo runtii anoo ka faa'iideysanaya maadaama wasiirku nala joogo beledweyne waxay u baahan tahay xal waare u baahan tahay
hal maanta laga celiyo ma baahna hal waare u baahan tahay in dowladdiina maaragtay iyo dhammaan soomaalida diaspora in la iska kaashto in hal waare laga gaaro webiga runtii waxaan rabaa horta in aad ugu mahadceliyo qurba joogta aniga runtii waxaan ka mid ahay dadkii aad kugu ololeynaya beledweyne joogay deeqaha ay qurba joogta soo dirtay dhiibay runtii waxaan dhihi karnaa deeqaha oo maaragtay xilliyada fatahaadda qurba joogta ay samayso boqolkiiba 80 inta badanba waxa maaragtay dal beledweyne lagu samata bixiyey haddii ahaan lahayd gargaar oo raashin haddii ahaan lahayd lacag kaashaba runtii waxay ka yimaadeen dibaday ka yimaadeen runtii waana wax la wada ogyahay oo wax muuqda waaye waa wax maaragtay lacagaha ugu badan haddii jaariyad ahaan lahayd haddii shakhsi ahaan lahayd waxaa arkaysaa qurba joog aan u dhalanin gobolka ma aan kuma xirna xataa dadku u dhashay gobolka lacagaha waxay ka imaanayaan soomaalida oo meel kasta ay joogto qof kasta soomaali oo adduunka dacaladiisa jooga hadduu australia jooga hadduu america jooga runtii waa door muhiim ay ka qaateen waxaan aaminsanahay biyo baxooyinka soo baxo ama fatahaadaha soo baxo beledweyne in diasporada ay aad maaragtay uga qayb qaadatay haddaynan ayada ahayn dowladda soomaaliya waxbay dhiibaysay waxna inta badanna maaragtay mararka qaarkood sida la rabo waxba sooma gaarsiinayn laakiin waxa emergency-ga maanta haddii biyaha soo baxaan qofka emergency u baahan yahay waxa emergency ka soo gaarsiinaya waa qurba joogta runtii oo aad moodo maaragtay inay aad ugu dhiiranaayeen weliba biyo baxooyinkii tii ugu darneed oo 2019 dabayaaqadeeda ahayd oo gebi ahaanba magaalada boqolkiiba boqol laga baxay runtii waxay ahayd gargaar fiican ay soo gaarsiiyeen dadka waxyaalaha ay maaragtay ay ku samata bixiyeen ama maaragtay beledweyne waxaan dhihi karaa waxyaalaha ay ku fagsatay waxaa kow ka ahay qurba joogta marka fatahaaddaad waxay noqotay markasta in la filaayo hadda dayra soo socoto hadda waxaa la rajaynayaa maadaama ay dowladda xataa ay alartay ay bixisay inay fatahaad soo socoto maadaama beledweyne waxaad la leeyahay etoobiya waa meesha ugu horreysa ay dhibaatada ka imaanayso ay maaragtay meesha ugu horreysa ay dhibaatada ka imaanayso waa maadaama hadda lagu guda jiro webigana hadda uu buuxo wax yar oo hadda imaado webiga ma xamili karo waxaa laga yaabaa cadaadiskaas loo sameeyey waxa soo dhiga xataa inay baabaan runtii waxaa jiro guddiga fatahaadda oo aniga xataa qayb ka ahay oo ka kooban bulshada qaybaheeda oo runtii dadaal badan wado waxaan rabnaa marka arrintaas Soomaali diaspora iyo dowladda federaalka wasiirka nagala joogo in hal waaro maaragtay arrintaas loogu istaago waxba ma keenaysa mar walba in la soo gudmado oo maaragtay mar walba dhibaato imaado dhibaatadii laga falceliyo meesha waxaas wax ka weyn ku maqan waxaa baaba'ay gebi ahaan beer walba ma jirto waxaa laga yaabaa sanad ay kusii socoto beeraha inay dhammaantood gebi ahaanba baaba'aan dalagga marka la abuuro 3 bilood u gaaraa qudaartii iyo waxyaalaha la midka 3 bilood haddadaan lama gaari karo qudaartii oona soo go'in dadkii iyo wixii inay u soo go'in biyaha imaanaya marka waxaan rabaa inaan arrinkan maaragtay aan aad ugu mahadceliyo mar labaad ugu mahadceliyo Somali Global Diaspora oo runtii ugu casuuntay barnaamijkan quruxda badan billahi tawfiiq assalaamu calaykum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله محمد آد يا آد بقى ما هسنتها سيداس كوبانا ماركنا وربحنتها هوفن آد نقصي سي برنامج كسعودة بلدوين إنه واحد جذا يصير فتحات ضدك إساميين رنتي وحلاقو قبل لها وأنا كاجا ماركتي ما هدعلينا الناس إذا ماركتي قيمها بدنا أوجه هذا الشيء دور كسومالي ذا قرب تشوك تيرونتي كقاتين أنا ما هسيتو وهرون وحويان إن أهل نحل وراء أباهن هاي arrimahan fatahaadaha iyo abaaraha iyo xataa maaragtay waxyaabaha kale maaragtay bani'aadnimada leh ee dadkeena saameynaya runtii kulli waxaas oo dhan deegaanka ayay maaragtay ay ku saabsan yihiin marka deegaanka sidii runtii wax looga qaban lahaa oo haddii dhibaatooyinkii aan markino aan la fahminin oo la cilaaminin waxba lagama qaban karo markii markaas la fahmana in ayadana loo gurmado sidii xal waara maaragtay loogu sameyn lahaa sababtoo waxna waa wax marka gargaar degdega weeye marna waxa weeyaan in markaas loo gurmado sidii gargaarka degdega looga bixi lahaa oo maaragtay runtii xal waara sidaa u sheegtay loo heli lahaa marka insha Allah waxay u baahan tahay dawladda iyo anaga qurbijoog hadaan nahay iyo dadka maarkino wadanka gudihiisa ku dhaqanba sidaan inaan iska kaashano aan iskula shaqeyn lahayn insha Allah diilaar maxamed aad u mahadsan tahay waxaan jeclahay markaan inaan soo dhaweeyo Cabdullaahi Cali Jimcaale oo runtii
maaragtay runtii nin aad iyo aad qaybo badan oo ka mid ah maarkino waddanka waxyaabaha wacyiga ka jira runtii ka qayb qaatay nagalana qayb qaatay annaga hadda shirkeena ugu dambeeyey qurbajoogta aan ku qabannay magaalada xamar oo ku saabsanaa maaragtay wacyigelinta iyo horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed runtii cabdulaahi oo runtii waxay nooga sheegi doonaa maanta arrimaha ayaxa iyo xaalufinta uu maaragtay runtii ku sameeyey meelo ka mida maaragtay beeraha waddanka kaasoo inta badan ka yimid maarkano sida hay-adda FAO ay sheegtay dhulkaas Yemen oo inta badanna maarkano dhinaca waqooyiga markiis ugu horreeyay runtii dhibaatooyin badan u geystay kadibna dhinaca kale isaga laftigiisa koonfurta usoo gudbay marka cabdulaahi soo dhawow hadda ay maqlaysid adaan marka ku siinayaa inaad warbixin yar oo kooban naga siiso insha allah arrimahaas mahadsanid موديلات كسرت دوايا cabdulaahi muudka iska bix وكا ولي ميوت كجرتا منطق ما ka bixin kartaa adigu waa malayn inaad ka bixin kartaa soo no واساقوا I can notify وو كجرا حتى من مخلك حتى دلاه ما يعد كاغي ولا ما مخلو speakerkiisa miyaa marka weli mudu ku jira no the speakers are connected it's just حط كاغي مخلين for some reason microphone case it says connected for ما مخلي كرا I think you need inuu maybe fiiriyo codka markan oo intuu la eg yahay speakerkiisa inuu fiiriyo volumekiisa waxaa ka caawin karta miyaa adiga no not guess case computer ka waay okay ممكن سلعتنا ma usoo noqonaa isaga mise weli isudaya Abdullahi inuu mashquulsan yahay because waxba uu qoraya okay waa ku soo noqon karnaa kaso ma maqli karno hadda anaa la hadlayo ha okay marka cabdulaahi way fiicnad inaan israacino arrimaha maarkino caqabadaha dayax muxuu ahaa ayaxu runtii uu ka mid yahay waan usoo noqonaynaa bal haddaa maanta la fiiriso adiga technicalka dhinacada ka caawin karta maybe inuu intuu ka baxo mar kale nagu soo noqdo inay xalisaa laga yaaba arrintaas waxaan u gudbayaa markaan jeclana u gudbiyo doorka maaragtay hay-adaha caalamiga runtii ay ka geysteen wax ka qabashada maaragtay arrimaha bini'aadnimada ka jira maaragtay runtii waddanka waxyaabaha hadda aan soo tilmaamay ama fatahaadaha ha ahaadaan ama maaragtay abaarihi ha ahaadaan ama ha ahaadaan maaragtay COVID-19 maaragtay oo saameynta uu ku sameeyey waddanka runtii hay-ado badan oo caalamiya ayaa maaragtay waddanka ka shaqeeya una soo gurmado oo mar walba maaragtay runtii u helan sidii maaragtay taakuleentaasi loo fidinayo ummadda ay wax uga geysan lahaayeen hay-adahaas waxaa ka mid ah Danish Refugee Council oo runtii maaragtay xubin firfircoon ka ah hay-adaha caalamiga ee waddanka ka jooga maanta waxaa nala jooga Suleiman Axmed oo ka socda Danish Refugee Council oo nooga hadli doono warbixin yar maaragtay waxyaabaha iyaga maaragtay arrimaha aan sheegnay ay ka qabteen ama ay ka qabanayaan ama ay ku tali jiraan inay ka qabtaan soo dhawow Suleiman waa salaaman tahay Jawaahir horta waxaan salaamayaa saacad wasiir salaamullah okay are you seeing me now I'm not a fan of it actually sorry وحير am I okay now hoos wili hoosaa jirta ha sax waxyar korsoon ka waa mahadsantihiin saacad wasiir adaan ka bilaabaya salaan saray walaalaheen global diaspora led by Jawaahir wallahi runtii hadda meelaan ka bilaabo ma garanayo walaalaheen waxyaalihii ay ka hadleen ayaa muhiim ahaa I really appreciate mahad weyn baanan u celinhayaa qoladan diasporaga mashruuca weyn ay wadaan waana wax muhiim waxaan anigu mar badan arkay oona wax weyn qabtay the Somali intervention at the private sector waana dadka
weli aanan ku xisaabtamin waana jawaahire halkan inaad ka casumto qolada private sector waxa ay qabteen iyo meesha ay gaareen ayaa muhiim waana xubin weyn oo Soomaalida wallahi wax weyn u haysta waxaan rabaa inaan ka hadla maxaan qabanay haddaan nahay international agency waxaan rabaa inaan idin sheega COVID-19 it was not business as usual I must admit waanan inaan idin sheega waxaa dhacday in naxdin weyn dhacday oo la kala cararay staafkii la kala guray 2 bilood baa waxaan ku soconnay inaan aniga dhexdeena iska shaqeyna waxaan la harnay staff la yiraahdo core staff oo ma garanaysa the frontline staff oo muhiim ah healthka iyo emergency response-ka waxyaalihii runtii aan qabana waxa weeye in aan dardar gelina nadaafadda oo 19ka markii sidii noola sheegay spreadkiisa sida uu ku tarmahaya ahayd inaan nadaafadda kor loo qaada oo laga hortaga waxaan kaloo sameynay in aan dhigna strategic places biyo faraxal ah oo dadku ma garanaysaa hadee ma la wada gaari karo mashruucyaasha meelihii laga wada dadkii aan la shaqeynahaynay aan ka hadlahaynaa inaan ku caawinay inaan non-food item oo distribution aan u samayna jargan saabuunaha waxyaalo badan aan u samaynay waxaan kaloo samaynay inaan hand washing strategic places aan dhigna dhulkii aan ka shaqeynahaynay waxaan kaloo samaynay oo muhiim ahaa arrinka hortag and preparedness inaan samayna oo COVID-19 ku talaysan oo dadka loo sheegayo in meelaha bulshada tegin waxaan isticmaalnay radio FMs waxaan kaloo isticmaalnay short messages social media-ga it is very important waana arrin muhiim bay ahayd inaan arrinkaas ma garanaysaa wax weyn qayb weyn ayayna ka qaadatay waxaan kala shaqeynayna runtii dowladda federaalka iyo federal member stateska wax anagu de gaarkeena aan u socno ma ahayn dowladda ayaan la shaqeynaynay dowladda ayaan garab taagnayn takulan ayaan u sameynaynay waxaan rabaa halkan inaan ka sheego markii COVID-19 uu dhacay waxay istaageen mashruucyaasha horumarka developmental project resilience durable solution waa la kala cararay laakiin waxay noo ogolaadeen qoladii doonaaga inaan sameyno emergency transfers ka aan wadnay waxaa noola ogolaaday in aan qayb weyn ka qaadana oo ma garanaysaa dadkii aanan ka joojinin bilihii u soo hareen waxaa kaloo noola sameeyey flexibility oo ma garanaysaa international community-ga especially EU-ga iyo USAID-ka in lacagihii horumarka ahaa loo leexiya dhinaca health-ka oo ma garanaysaa PPE-ga lagu gada personal protective gears-ka lagu gada marka arrinta flexibility-gana international donor-ga wallahi waa inagu caawiyey waana wax qayb weyn ka qaatay inaan la dagaalno COVID-19-ka waxaa kaloo jira communication materials-ka iyo waxaan membership ka noqonay federal member committees-ka at national level iyo federal member state committees-ka oo ka hortagahayeen fatahaadaha locals-ka COVID-19 waxaan rabaa inaan idin sheega wallahi maxaa laga qabtay COVID-19-ku markuu la wareegay waxaa inaga dameeyey responsyada waaweynaa oo aan wadnay sidii locals-ka iyo interventionska faraha badnaa marka fatahaadihii beledweyne DRC waa stakeholder members kale la shaqaysaa siduu ninka walaalkeena sheegay waa meel waa fiscal cycle weeye beledweyne the donors waxayna weydiinayaan maxaa xal ah halku wuxuu inagu jiraa anaga Soomaalida ninka walaalkeena hadda ka hadlay arrinkaas waan u mahad celinayaa in aan la imaano long term plan oo ragga donorska aan oo loola taga oo loo sheega beledweyne waxaa xal ah in diversion of the water loo sameeyo desilting of the river dowladda hore way jirtaa ninka walaalkeena waa ogyahay in ma garanaysaa mashruuc jiray webiga waxaa soo buuxsamay dooba silt ayaa soo buuxsantay oo Ethiopian Highlands and other places ka imid marka arrinkaas waa wax muhiim ah qayb weyn bay ka qaadatay diaspora-ga and the private sector dadka locals oo private sector businessmen-ka wallahi ma hadda ugu weyn iskale oo ma garanaysaa arrinka fatahaadaha afgooy meesha la yiraahdo beledweyne waxaa fatahaada kale ka dhacayn ayadana oo ma garanaysaa response weyn aan ka sameynay in dry river jiray oo webi maaragtay oo
seasonal iska ahaa oo markii dayrta iyo guga biyo keeni jiray in uu ku dhuftay meesha la yidhaahdo qardho oo magaaladii dhan uu qaaday hay'adaha international community-ga qayb weyn bay ka qaateen maxaa inagu soo aadan oo caqabad oo aan la kulmi karnaa the way forward horta waxa weeye waa inaan xoojino diasporaga iyo private sector-ga Somali for Somali is the way to go. That is the best advice I have. All the international community, the donors, we are here to support one. I think especially the international partners or DRC. Aniga aan ugu hadlaya. Ugarab idin ku nahay waad ogtahay Jawaahir diasporaga in DRC hadday bilaabeen qoladii bilaabeen ay kamid tahay diasporaga ma garanaysa partnerska ugu weyn ay tahay waana idin garab taaganahay mashruucyaal durable solution ayaa jiri doonaan waanan idinkala shaqaynaynaa waxaa jirta co-funding wax la yidhaahda iyo matching grantka diasporaga aan kala shaqayna software ayaa jira aan samaynay in ma garanaysa hadday local community-ga mashruuc ay arkaan in loo muhiim u yahay inaan anagu 70% mashruucaas amiiska saarna 30 kalena laga keeno qolada diasporaga waxa weeye ownership-kaas ayaan create garaynaynaa si exit strategy aan u samayna waad mahadsan tahay waxaan dhici doonaa waxaan u malaynayaa waxyaalaha caqabadaha uu ka hadlay saacad wasiir Hamza waxaa dhici doonaa donagu there is in the donor level yani waxaa jira in la daalay in ayaga naftooda coronavirus-ki economically ma garanaysa ayaga dhaqaale ahaan ma garanaysa ayaga ay hoos u liitaan oo ma garanaysa dadkoodii ay markaan ku jeesteen waxaa dhinaca inaga soo aadi doonaa inay yaraato lacagihii Soomaaliya imaani jireen oo donaga u imaani jireen waa wax la rabo wallahi inaanan ma garanaysa aanan u dayma darnaanin oo aan fiirina the private sector and the diaspora are the solution to this problem and waa idin garab taaganahay waana initiative muhiim ah oo exit strategy-ga dowladda Soomaaliya both the federal and the member states-ka hadii lala garab istaagade waa dad u dhashay dhulkii waa dad xanuunsanayo waana la fahansanahay knowing the context itself is one way of solving the problem marka waa mahadsan tahay Jawaahir saacad wasiir iyo asxaabta kale my colleagues waa idin salaamaya aad iyo aad u mahadsan tahay Suleiman sida hufane maaragtay inuu soo bandhigtay waxyaabaha Danish Refugee Council-ka uu sameeyay uuna damacsan yahay hadeertaan inuu sameeyo qorshaha ugu jirta iyo talooyinka runtii wax ku oolka bixisay waa run waxa weeyaan Danish Refugee Council anigu ma aqaana yani halkan muxuu ahaa waan iskala shaqeynay barnaamijyo badan waddankan ayno maaragtay inay runtii ay aad iyo aad u firfircoon yihiin oo mar walba ay jecel yihiin runtii inay ay la shaqeeyaan maaragtay dadka kale Soomaalida ama qurbo joogta maaragtay runtii dadaalka ay sameynayaan runtii hay'adaha runtii aad ku muujiya weeyaan oo la shaqeeya marka aad iyo aadaan kaaga mahadcelinayaa inaad adigoo maarkano hay'ad caalami ah ka socda hadana Soomaali ah maaragtay in aad maaragtay aad barnaamijka maanta ka qayb qaadatay Suleiman aad u mahadsan tahay weli waxaan maaragtay Cabdullaahi wuxuu haystaa weli technical difficulty Cabdullaahi Xali Jimcaale marka waxaan jeclahay markaan inaan u gudbo doorka maarkano Soomaalida maarkano hay'adahooda samafalka ah oo maanta inagala jooga Cabdirashiid Xirsi isagoo qaabilsan dhinaca maarkano koonfurta iyo maaragtay maarkano waddanka maarkano dhexdiisa koonfurta iyo dhexdaba marka Cabdirashiid runtii wuxuu ka mid yahay hay'adahan maarkano samafalka ah maarkano xiriirka weyn ee ka socda waa coordinator way isaga marka Cabdirashiid soo dhawow si kooban hadda maaragtay inoo siisid waxyaabaha maaragtay runtii adinka maarkano arrimahan hadda aan ka hadlaynay oo caqabadaha badan oo jira waddanka waxyaabaha adinka maarkano ahaan aad ka ogtihiin aad ka qabateen ama aad ku tali jirtaan runtii inaad ka qabataan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله دمان والد السلامي وديرك وجهرية أدبنا نقول فرح سنة رنتي عسماد أنا شركة نوع عسنتين وأنا عن سلايا رنتي ويها بونيد وقت جيسوها شركة نينو دعوة فدام حالة ذا أدب وحضرتان وبني آدم نما ودلك كوتشيرو رنتي هيدها دلدا هيدها isku taga Somali NGO Consortium loo yaqaan
oo ay ka mid yihiin haddeertaan hay'adaha haddeertaan dalka ka wada mashaariicda bini'aadanimo waxa weeyaan gacan weyn bay ka geysteen wada shaqaynna waxay la leeyihiin xoog leh wasaaradda wasiir xamza uu ka mid macnihii uu madaxda wasiirka uu yahay iyo stateska oo sidaas oo kale laftigooda ay ka jiraan maamul goboleedyo oo structuradu waa kala duwanaan karaan qaybteed ay leeyihiin wasiirada bini'aadanimo qaybtoodna ay leeyihiin wasaaradda qorshaynta oo markaasi arrimaha bini'aadanka aanu kala shaqayno runtii arrimahan Soomaaliya horay ayadoo ay u jirtay jilicsanaanta ay sababeen arrimaha kale ee bini'aadanimo ay ka mid yihiin abaarihii soo laalaabanaya ay ka mid yihiin colaadaha waxa ay noqotay weji cusub oo xaaladii bini'aadanimo siyaadiya markii ay kaceen saddexdan arrimood oo bini'aadanimo ay yihiin COVID-19-ka uu yahay ma garanaysaa ii sheeg trouble tree-ga marka runtii xaaladda bini'aadanimo aad bay isku beddeshay waxaa moodaa in effortskii hay-aduhu laftigoodu ay markii hore ay laba jibaareen in ay tahay baahida dowladda ama mar walba ay nala sheer garaynayso oo maadaama ay ayagii dalkii matalan ama annagii aan joognayo baahiyaha laftiga iyaga aanu soo aruurino oo ama individual ama clusters lagu soo aruuriyo aad moodid in ay mar walba xaaladda bini'aadanimo ay sii siyaadayso sida haddeertaan ay dadka iga horreeyey ay sheegeen abaaruhu waxay ahaayeen runtii xaalad bini'aadanimo jirta laakiin markii climate change-ga floodiskan iyo waxyaalahan kale ay yimaadeen 2017kii ilaa 18kii xaaladdu way sii adkaatay ayadoo ay haddana taasi jirto waxa haddana oo macluushin ay horay u jirtay haddana waxaanu baranay 2020 cudurkan COVID-19 oo runtii waxyaalo badan ma garanaysaa saameyn ku yeeshay keliya maahan xaaladaha bini'aadanimo ee dalka Soomaaliya iyo adduunkaba ka jira runtii Soomaaliya marka oo markii horeba dee xaaladda bini'aadanimo ay dalalka ay ka mid tahay dalalka xaaladaha bini'aadanimo la liita wuxuu ku noqday xaalad bini'aadan oo cusub oo ay noloshu ay aad u adkaato barakaca uu siyaado dadka ma garanaysaa ii sheeg baahida iyo xaaladda bini'aadanimo qabana ay siyaadaan waxyaalaha marka runtii aan isleeyahay haddeertaan shirkan inaan kaga faa'iidaysto waxa weeyaan sida saaxiibada iyo wasiirka dhammaan ay la minshin gareeyey roolka dadka diaspora runtii waxaan la inkiri karin weeyaan inaan la xoojiyana aad bay u baahan tahay aad baa loogu baahan yahay waxaa kaloo aad loogu baahan yahay runtii aan isleeyahay mar walba hay-aduhu way u baahan yihiin waxa weeyaan waa roolkii dowladda oo leadershipkii iyo magaranaysaa ii sheeg in ay qaataan aad waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda arrimaha bini'aadanimada waxaa jira horumar badan oo ay dhinacaas ay ka sameeyeen sida early warning systemka oo ay establish gareeyeen oo haddeer dalku la awoodi karo in la helo warbixinno hordhaca oo markaasi lagu qorshayn karo mashaariicda bini'aadanimo ee markaasi hay-adaha wadaan oo ay ka mid tahay in ay la sheer gareeyaan floodis ka imaanaya abaaraha jira iyo magaranaysaa xogtaas oo dhan in maanta laga helayo wasaaraddii arrimaha bini'aadanimada waxyaalahaas dhan oo horumar oo la sameeyay haddana waxaa jira caqabado weli haraynaya oo ay tahay in runtii inta karaankayaga aanu inay tahay inaan wax ka qabanno wixii kaloo aan la kaashan karno international community-ga iyo donorskuna ay runtii ay tahay in advocacy-geeda kor loo sii qaado waxyaalahan anigu haddeertaan marka aan isleeyahay aad in magaranaysaa ii sheeg loo xoojiyo wasaaradda wasiirkana uu dhowr jeer dhowr meeting kaga hadlay waxa weeyaan early warning markii la sameeyo early mobilization in la sameeyo oo resource-kii hay-adaha humanitarian runta iyaga anagu aanu ka mid nahay oo maadaama Somalia NGO Consortium hay-ada 100 ah daladani ay ka mid yihiin aanu samayno laftigayaga advocacy-gii iyo magaranaysaa in resource mobilization la sameeyo in arrintaasi la xoojiyo arrintaas waa arrimaha u baahan runtii ii sheeg muhiimadda gaarka in la siiyo waxyaalaha kale oo aan isleeyahay daladayda isku tagga hay-adaha
ay xoogga saarta waxaa ka mid ah coordinationka oo ah runtii markii aad si u fiirisid hadday dalkii resource badan oo intaasoo milyan ay soo galaysa laakiin wixii qorshe iyo wada shaqayn aysan jirinin waxaa moodaa wixii inay noqdaan hal bacaad lagu lisay aadna waxaan runtii ugu faraxsanahay dowladda iyo magaranaysaa ii sheeg macnihii structuradii ay maalinba maalinka ka dambaysa ay soo dhammaystirmayaan in haddeertaan la joogo heerkii hore toona aan u dhoweyn oo ay tahay maanta markii laga hadlayo humanitarian minister of humanitarian ay leadershipkii leedahay oo dalkii ay ayadu baahiyihii iyo wixii dhammaa ay coordinate garaynayso hay-adihii laftigooda aysan magaranaysaa ay ku shaqaynayaan baahiyo la wada ogyahay oo dowladdii iyo hay-adihii dhammaantood ay wada ogyihiin marka waxaa yaraaday overlappingku waa yaraaday waxyaalo badan oo runtii awal u baahnaa inaa wax laga bedelo waxbaa laga bedelay laakiin waxaan isleeyahay still sida haddeertaan inoo muuqatay oo aanan u diyaari garoobinin ha ahaato inay tabar naga reebto ha ahaato inay magaranaysaa isha wax kale naga reebaan weli waa jiraan dhibaatooyinkii dadkii biyuhu qaadayeen afgooya haddeertaan ugu dambeysay shalay haddeertaan waxaa laga sheekaynayaa in ay macquul tahay inay marka runtii waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga oo aan rabaa in aan dhiirigeliyo wada shaqaynta ina loo gudbiyo I know haddeertaan sida uu Saleebaan from DRC uu sheegay laftigeedu dadka localka ah waa waxa weeyaan waa wax weyn oo loo baahanyahay ay yimaadaan in magaranaysaa ay sheegay gacan ka geystaan leeyahay gacanna ka geystaan marka coordinationkaasi inuu waa jiraayo haddeertaan uu sii xoogaysto culuma waxa weeye waxa ruuriso oo gacan ka geysata diaspora gacan ka geysata ganacsata gacan ka geysata hay'adihii internationalka baa gacan ka geysta dowladdii baa gacan ka geysata marka inay wax noqdaan in wax la sii wado oo haddana coordinate garaynayo arrinta marka ugu muhiimsan oo aan ku istaagahayo oo aan isleeyahay arrintaasi muhiimad gaar ah in la siiyo waxa weeyaan waa coordination aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid runtii sida fiican maaragtay aad inoogu soo koobtay doorka maaragtay hay-adda isku xirka maaragtay hay'adaha ismafalka ee Soomaaliyeed marka runtii waxa weeyaan waa run oo waxa weeye mar walba isla shaqaynta iyo isku xirka ayaa mar walba waxay keenaysaa in runtii dadku ay wax badan ay kala faa'iidaystaan maaragtay wax badanna isla socoshadaas iska warqabkaas isla shaqayntaas mar walba waxay kordhinaysaa wixii dadka loo qabanaya mar walba inay tayadeedii iyo itireedii inay kororto aad baa u mahadsan tahay waana ku mahadsan tahay sida maarkino aad inogala soo qayb gashay waqti yaro kooban runtii aad diyaar ugu noqotay inaad waqtiga qaaliga ina siisay